youtuberka caanka ee reer Kuwait Abu Falax isla markaana loo garan og yahay Abu Falax ayaa saacadihii kasoo gudubnay wacdaro ka dhigay barta TikTok fideogii koobaad markii ugu horeysay uu soo galay barta TikTok waxa uu ku muteystay dad kor u dhaafaya 1 milyan oo followers imika aynu idinla hadlayno waxa uu haystaa 2.3 milyan oo followers barta TikTok sidoo kale akoonkiisa gaarka ee TikTok ee uu sameeyay saacadihii kasoo gudubnay ayaa waxa uu helay aqoonsi caalami ah iyadoo uu helay calaamadda verification badge loo yaqaano ee tigta ee aqoonsiga sidoo kale Abu Falax oo wacdaro waaweyn ka dhiga baraha galgadsan ee bulshada ayaa markiisa ugu horeysay oo TikTok ku soo biiro waxa uu muteystay tiro aad u badan oo dad ku biirayay tani ayaa la yaab ama ka ku abuurtay qaar ka mid ah dadka baraha bulshada isticmaalo iyadoo dadka wax iska weydiinayaan siyaabaha uu ku muteystay dadka tiradaasi badan isla markaana iyadoo uu kaliya saacado kooban uu ku jiray bartaasi TikTok kaliya uu soo geliyay fiidiyoyo imika gaaraya ilaa 4 maadaama tirada fiidiyoyada halkaasi uu soo geliyay ay isugu jiraan fiidiyo goordhow uu soo geliyay oo uga mahad celinayo dadka 24 saacadood ee ugu dambeeyay ku soo biirayay bartiisa TikTok waa rikoorkii ama skoorkii ugu weynaa ee uu jabiyo qof caanka baraha kala duwan ee bulshada mana ahan markii ugu horeysay oo ninkani uu skooro waaweyn ka jabiya baraha kala duwan ee bulshada Abu Falax oo fadhigiisu yahay dalkaasi Kuwait isutaga Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu dhawaan ururiyay lacag gaaraysa 1 milyan oo dollarka Mareykanka si wax uu looga qabto dhibaatada haysata dadka qaxootiga ee ku dhibaataysan dalalka Syria, Lebanon, Iraq iyo sidoo kale Jordan dad kor u dhaafaya 22 milyan oo qofood oo isaga si gaar ah markaasi ugu xidhnaa xilligaasi ayaa dadkaasi garab istaag u muujiyay ninkani oo magaciisa markaasi gaarka uu yahay Xasan Suleymaan hase ahaatee loo garan og yahay Abu Falax ayaa markii ugu horeysay uu YouTube-ka ku beerayay waxa uu ahaa qof markaasi fiidiyoyada dhinaca gameka sanadii 2016 ku soo shacbaxay hase yeeshee waxa markii ugu horeysay muddo 4 ama 28 saacadood gudahood uu ku aruuriyay lacag gaaraysa 1 milyan barnaamijkan oo iska kaashanayeen hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR ayuu Abu Falax oo 23 sano jir ah isagu markii ugu horeysay ku muteystay abaalmarino iyo sidoo kale bogaadin caalamiya ninkani ayaa waxa uu sidoo kale ku muujiyay isla fiidiyowgaasi shucuur aad u weyn oo ilmada ay ka qubanayso la arkaya xilli uu dadweynaha siiba dadka meel walba oo caalamka ka joogaan isaga ku xiran luqadda carabiga fahmaya intooda badan uu markaasi ka codsanayay in ay garab istaag u muujiyaan dadka dagaalada ku barakacay isla markaana xaalado bini'aadanimo ay ku haystaan dalal kala duwan oo caalamka ka mid ah gaar ahaan dalalka Carabeed Syria Iraq oo xaalado xasilooni darro ay ka jireen muddooyinka ugu dambeeyay qaxooti fara badan oo ka qaxay isla markaana imika ku jira xerooyin kala duwan oo ku yaala Lebanon iyo sidoo kale Jordan ayaa intooda badan wajahaya xaalado kala duwan xerooyinkaasi oo ayeen qaar ka mid ah xerooyin ay ku jiraan qaxooti sidoo kale Falastiiniyiin ah haddaba ninkani ayaa sidoo kale lacagta u ururiyay waxaa xilligaasi markaasi dhaqaalo raashin loogu iibiyay isla dadkaasi waxaana deeqdaasi isugu jirtay raashin dhar iyo sidoo kale haddaba shidaal loo gadayay qaar ka mid a dadka halkaasi ku nool kuwaasoo intooda badanna wajahaya xaalado kala duwan dad kor u dhaafaya 17,000 oo caalamka qaxooti ku ah kuwaasi oo dalalka Carabeed ay xaalado kala duwan ku haystaan ayuu Abu Falax shucuurtiisii ugu horeysay muujiyay xilligaasi waxaana ay ahayd sanadii 2021 dabiiqadeedii waxaan u maleynayaa in bishii November ay ahayd xilligaasi oo wacdaro uu ka dhigay dad badan ay wax iska weydiinayeen Abu Falax oo jinsiyadiisa aanu caan ku ahayn inuu ka hadlo marar kala duwan oo wax laga weydiiyay waraysiyo kala duwan ayuu ku dafiray waxaana uu sheegay inuu kaliya doonayo in dadka taageerada u ah in kaliya isaga shakhsi ahaantiisa ay u aqoonsadaan balse aysan wax juhdi iyo waqti ku bixin dhalashadiisa taasi oo uu sheegay inaysan marnaba habbooneen Abu Falax ayaa markii ugu horeysay waxa uu noqday shakhsi siyaabo kala duwan markaasi looga hadlayo dhinaca social media wixii xilligaasi ka dambeeyana waxa uu noqday qof markaasi
caanka ah baraha kala duwan ee bulshada. marka la eego youtube-ka dad kor u dhaafaya 27 milyan ayaa abufalax markaasi u subscribe garaysan barta youtube-ka, halka qaybta daawashada marka la eego tirada dadka muuqaaladiisa daawatay ay kor u dhaafayaan ilaa 3 bilyan oo qofood. tir ahaan haddii aynu qiyaasno waa 3 bilyan 830 milyan 995,986. haddaba waxaana muuqataa youtube-kan oo la sameeyey 2016 markii ugu horreysay uu gaaro muddo ka yar 6 sano. tiro intaasi ugu badan mana jirto iskoor halkaasi oo kale dhinaca social media marka la eego qof iskoorkaasi oo kale ka jebiya baraha kala duwan ee bulshada. iminkana abufalax waxa uu wacdaro ka dhigayaa tiktoka video ayuu soo geliyey. videogaasina marka la eego daawashadiisa iyo sidoo kale dadka sidoo kale kusoo raacay tir ahaan waxay kor u dhaafayaan iminka 2 milyan. waxaana sida muuqato abufalax uu noqon doonaa qof wacdaro dhiga islamarkaana baraha kala duwan ee bulshada qabsada, maadaama iminka durbow ay bilaabeen warbaahinada qaar caalamka in ay wax ka qoraan islamarkaana intooda badan ay isku dayaan in ay ka faaloodaan bal dadaalka iyo juhdiga wiilkan uu soo bixiyey iyo heerka sare ee magaciisa iminka uu ka gaaray dunida markaa si loo fiiriyo qaabka dadka ay ugu taageersan yihiin dhinaca social mediaha. haddaba abufalax marar kala duwan waxa uu abaalmarino kala duwan guddoonsiiyey walaaladii oo walaashii ay ku jirto iyo sidoo kale shakhsi kale oo walaalkiisa. waxaana xilligaasi ay ahayd markii ugu horreysay oo uu markaasi dadweynaha la wadaagaya ehelkiisa iyo sidoo kale faamilkiisa iyo sida ay ugu riyaaqeen heerka nolosha uu ka gaaray. waxaana muuqataa iminka in uu sanad jirsaday 24 sano. abufalax oo afka carabiga inta badan aad u adeegsado islamarkaana ka mid a dadka ku nool waddankaasi una muuqdo in halkaasi uu ku dhashayba imaaraadka carabta. ehelkiisa iyo faamilkiisa sida xogaha kala duwan aynu ku helayno waxa ay kasoo hayaameen soomaaliya ka hor inta aynan gaarin dalkaasi. waxaana abufalax oo halkaasi ku dhashay isaga uu noqday shakhsi markaasi dhinaca tacliinto kale marka la eego ku firfircoon dhinaca social mediaha. wacdaro koowaad ayuu ka dhigay baraha kala duwan ee bulshada, heer aad u sarreeya uu ka gaaray oo aan la oran karo qof soomaaliya oo uu ka gaaraa walow uunan inta badan ku faanin jinsiyadiisa soomaaliyeed. laakiin dad badan ayaa waxa ay aad ugu taageersan yihiin uguna dhaliila qaarkoodba ay jiraan inkastoo ay jiraan dad kale oo ku dhaliila, laakiin dad baa ku taageersan in uu ka gaabsado marka wax laga weydiiyo arrimaha dhalashadiisa. hase yeeshee dad badan ayaana aad ugu dhaliilaa halkay jiraan dad badan oo taageersan oo ay leeyihiin waxaa laga yaabaa in dhibaato arrinkaasi ay kasoo gaadho. guud ahaan muuqaalkan inta ayuu kusoo gabagabeynaya saaxiibayaal, waad ku mahadsantihiin. subscribe inoo saara janalkan, lagare muuqaalkan la wadaaga asxaabteena. waxaan idin rajaynaynaa in muuqaalo aad u tiro badan oo kuwani ka badan inaynu soo gudbin doono. mahadsanidin.